بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم waxaan doonayaa maanta inaan ka hadlo dhowr qodob oo hareerahayna ka socdaan doonayaa inaan ka socdo ka waramo waxaan ka waramayaa waxa weeye doorashadan xamar ka socota dad la leeyahay waxa ka socdaan gobolada waqooyi waxa ugu yeedheen waxaan doonayaa ka hadlo Yusuf Garaado oo magacaabay wakiilka badda cas waxaan doonayaa ka hadlo nin la Cabdi Yusuf oo shalayta horena oo sheegay shalaytana hadliyo lahaa waxaan in xoog lagu muuqdo Soomaaliland ayaan doonayaa ka hadlo horta waxa weeye waa nasiib darro maanta inagoo dalkeeni 30 sano gacanta ku haynay alxamdulillah rabbil caalamiin in maanta xamar la yiraaho doorasho ka qayb galiyaan dadka reer Soomaaliland waxaan ii sheegayaa bal waxaan ay sheegayaan leeyihiin dadka ka socda gobolada waqooyi waxa weeye waxay yiraahdeen konton xildhibaan oo waxa la isku haystaa ka socda gobolada waqooyi horta dadka halkaa tagay waxa weeye waa dad iskoodu tagay konton toddobada la sheegaya leeyahay waa xildhibaano kuma jiraan xildhibaanada la leeyahay way ka socdaan dhulbahantiga warsangeli waxay ku eegayeen qura dadka ku abtisada ciisaha isaaqa iyo gadabuusiga iyo nin gabooya ayaa weeyay leeyahay waqooyi gobolada waqooyi dadka halka ay sheegayaan ciisaha waxa loo qoondareeyay oo lagu qoondeeyay meesha la yiraahdo Carta 9 xubnood 9ka xubnood baa waxa magacaaba Ismaaciil Umar Geeli qabiilha ku magacaaba Soomaaliland kama socdaan qoladaas wax u jeed 8 bay leeyihiin soomaali ciisaha sagaal waxa ka socda gadabuursiga iyagoo dad iskood bay u tagaan cid magacaawda ma jirto isaaqana waxa weeye markaan golaha sare lagu darin aqalka sare ee wastay labaad iyaguna waa iskood baa u tagaan waa dad qabiil ku tagay dad dalka iman kara maaha anagu haddaan soo bixi lahaana maanta laba ugu hadleynay iyagoo maqan baan ku xukumi lahaa in khaa'imiin qaran yihiin waxa markaa jira waxa weeye hadda wada aqriisu way ishayaan qolna waxay leedahay Cabdi Xaashi ha soo magacaabo qolna waxay leedahay mahada soo magacaabo aba khadar baad ugu kala duwan yihiin waxay ku duwan yihiin qolna waxay gacan siinaysaa ay doonayaan inay codka siiyaan ninka farmaajo ee ogtiin cadaawadu qaba tii Maxamed Saadi ka weyntahay أيوة قبان عبد حاشي يقول زوجي قبان نكاس هل ريدو إسكدا سومالاني سومالي ولا مولكو هيا دبعتو خطر قليني أيوة ونكا يكسر تلقى شيء إنه عندما ورصدو وبدأها سومالي ده ووضع شيء قعدتو قليه أفردك وساحل ونكا يكسر تلقى شيء إريتري يقولك هاي ستا جبوتو لو Soomaalida inuu ka qaado cunaqabayntii oo la saftay horta qolkaasi la safantay wax qabiil ma jiro wuxuu dhan waa meesha uu tagay naga inuu matalaan lagu murmo ma laakiin qofku leh war iska ninkan inkastoo aan Soomaaliland taageersan haddana waan ka soo jeedaa in la xasuuqo wax la yeelo iyo mid taageeriye kii in xasuuqiye ninkan maanta Cabdi Yusuf shalay talaha xoog lagu soo sameeyo horta ninkaas marka ay daga waramo waxa weeye wuxuu ahaan jiray la madaayo haysan jiray doobiil waxa jawhar buka markaas uu galay guulwadayaashii Maxamed Saad Bare markuu siyaad ka yaabay sidoo ninkan qabiil uu yahay ayuu soo dalacsay ilaa wasiir ku xigeen buu gaarsiiyay maantana inuu hanjabeynay waxa weeye laba waxba uu ka helay USCO
dee u suurtagelisay inuu haddana maanta inankii ugu adeerkaa maxamed siyaad barre intay cod siiyaan fiila Soomaaliya geliyaan oo isagii ka dhigto la taliye taasi waa suurta gashay haddii kale wuxuu ku baqti lahaa Burtinle ayuu ku baqti lahaa inuu xamar joogo ma xaraam bay ka ahayd iyada inagoo ilowni godobteeni oo isaga in badan oo caynkaas oo gamcaha dhiiga ku lahaa dhiigana gamcaha caruurteena dhiig ku leh ayaa adduunka iyo xamar meelaha daadaashoonaya ninkaas waa halkiisi tagal waxa weeye ka hadlo ninkan la magacaabay Yuusuf Garaad horta waa inagu foolxumo mar horena wuxuu magacaabay farmaajo inaan u adeer yahay ilmaariyiin oo ila belel maanta Yuusuf Garaad horta dhulkan la sheeganaya waa badcas watiina waxa weeye in golayaasha guurtida iyo baarlamaanka soo saaraan oo ka hadlaan arrimahan la inagu socdo dushayna la inagu dulshaxayo in ka hadlaan gobolada waqooyi waxay ugu yeediyaan wax gobolada waqooyi aan jirin dadkaasi dad ina matalaan ahayn wayna ka hadashaa badda cas in inagu leenahay oo inanka ila caabi waa ku dhashay reer caabi waaqi inaanu baddeena aanu u sameyn karin magaranaysa wakiil waxa weeye inuu Cabdi Yuusuf Nooshan jago in maanta adduunka la maqashiyo xildhibaanada Soomaaliland ka soo jeeday baa la isku haystaa inagii baa aamusan marka aamuskaaga waxa weeye in aamusan baa lagu meeriyaa baa in waxaas wax ka jiraan baa la moodiyaa marka waxaan leenahay dawladda golayaasha arrintan waa in laga hadlaa adduunka loo qoraa bayaan cad la soo saaraa inaanay dadkaa jooga xamar sidaa uu soo shaqo doontay magaranaysa farmaajaba koo shidad sita uu madaxweyne ku noqday ayaguna u tageen inaa boosaska loo bixiyay dir waqooyi inay ku soo shaqaystaan ku noolaadaan laakiin wax alla wax ay dad matalaan inaanay jirin waxaan leenahayna dadkan Facebooka qabiil ka dhigana warnina waa nin Maxamed Siyaad Barre la socdo leh magaranaysaa hala doorto waa afayeen u noqday nina waa nin leh waa ninkaas waa qaraabe waa cadowgeeni oo waa ninka Maxamed Siyaad Barre waxaanu 15 sano ku gaadhay buu 3 sanad gudaheed ku gaadhay oo intuu raglaayay إلا كدلي إلا كأعصي رجيس واحد الجماعة USA عبد حاسكيسي مسخول كتشبيه أنا لقيت بحر بيرة بتجي شن يتبع كدلي ما أنت عيدا موسى ما يستاهل إريتري كصوت عبرتي الدنيا أغلى جيسة إنه ضدك عني محمد سياد برا إلى النشيري إريدي إنه حا يرى ريركود وجيد مثلاً ساي إريتريا inuu ku caaburiyo ku qabsado waxa leenahay dadka reer banaadir meel kale ninkaas xukumaa ma jiro iyo kooxdiisu horaadii ku sheegay baydhabo ma xukumo Kismaayo ma xukumo Beledweyne ma xukumo Garowe ma xukumo idinku xukuma lacagtiina ku socodsiin magaca siiseen ayuu maanta idku haystaa oo adduunka lacag ka qaata federal Soomaaliya war Soomaaliya xaga Soomaaliya jirta federal Soomaaliya idinku bay xukumayaan كجلجيشة ندورش وما تشيله تاريخا هتدي أو أديركي أيوني كاني والدنيا إنه حوجه هيس حوجه تكون هيسان معي كيو كبنا الله الدنيا كبنا كسارة يعني لا دارينا ما كان وحلاها عبد يوسفنا قدبت يده أكوك حق حرقر ميل ونوع على مثلا تعديق غير كابا لا وحنا سيد تصني سيد روح دارنا نكون سوق من أو كلماتها اللي هي محكمة كو كاني وحورة جيستيبه يا رجمنيين دي الله هنا ما قال وحوي ما شو يكتكتي ما كان لو ما سيد ويكتكتي سقاون والله وضح لي سقاون يلا وضح لي في الصومالية ما تكشين ما تحمر وحنا ندلي وحوي ورجع مانتا أنا كان البورسيش تكوي لو عتق عشرة شهور أنت يسكو حميني أنت أورتين يدي ومدحوين فدرالة يو فدرال قال يدكو يتحكم معي يو يحكم نعم بلاد حيو حكم ما له حكم لا رجع سو حكم
معيرقا وحكمه مقروا وحكمه marka waxaan leenahay saaw kala garta dawladdu ha hadasho badda cas ina garaad leeyahay waa noo magacaabay bal ina garaad bad cas ma xukumo annaga xukuno ilaahay nagu abuuray annaga taladeeda ilaahay gacanta noo geliyay cid kale ilaahay u geliyay ma jiro ilaahay ka soo salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh